qaar ka mid ah waalidiin carruurtooda horay howlgal lagu sameeyay ama looga sameeyay magaalada Jigjiga looga qabtay ayaa waxa ay sheegeen in carruurtooda loo qaaday dhinacaasi ee magaalada Goday oo ku dhawaad 500 kiiloomitir ka baxsan magaalada caasimadda waa dowlad deegaanka ee Jigjiga. waalidiintan ayaa waxa ay sheegeen in carruurtooda qaar ay isku diyaarinayeen sanad dugsiyeedka waxbarashada iskuulaadka laakiin nasiibka uusan u saamixin inay ka qayb qaataan waxbarashada iyagoo la geliyo xabsi ku yaala magaalada Goday. haddaba qaar ka mid ah waalidiinta ayaa la hadlay xafiiska telefishinka RTN oo ku leeyahay magaalada Jigjiga iyagoo codsi u jeediyay madaxda maamulkaasi oo ugu horeeya Mustafa Cagjar oo iminka ah madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. bismillahir rahmaanir rahiim anigoo ah Aamina Cali Saciid waxaan ka cabanayaa anoo ah qabalaha 14aad anigoo masaakiin ah oo mubaadila oo caruurtaydii biilkeedu ula oo caana yar ku naanaabiya ayaa habeen anoo seexday oo inankaygii koox ku jirin la isoo weeraray albaabkii baa la iga jabiyay inankii weynaaba la iga dilay waan ka daba cararay jiir bay yiraahdeen markaa wayna duubeen oo wayna wada dileen ilmihii yaraa way afduubteen isagoon dilgeysan isagoo oon ka oolin magac isagoo oon cishana layga xidhin isagoo oon habeenkii raaco oon ilaashado bareefadkiisiiyo iskuulkiisa aan ku xisaabtamayo ayay ilmahayga xadhigdooyaad ku xidhxidheen isagoon dembi lahayn Goday bay geeyeen Goday baan ka daba tegay waxay igu yiraahdeen inankaagi waa dembiile waxaan ka codsanayaa madaxda iyo mudanayaasha iyo garsoorayaasha awlaada yaryar ee maanta aan la caawinaynin ee maanta abaar dhulka ka jiraan ee maanta biilka ciriiri galay ee 100 riyaal waxba ku tarayn ee laba waxba ku tarayn saamuntoodii iyo maanta biilkoogii iyo buugoogii aan ka fikirayo waxaan Goday ku tagiyo maanta waxaan talxiis ku tago midna aanan haysan wuxuu xidhan yahay 13 beri 13 beri aanan seexanin awlaadii inaan loo soo celiyo oo lagu soo celiyo hooygoogii iyo Jigjiga ninkii dambi lagu hayo ee boog lagu hayo ee dil lagu hayo ee kufsi lagu hayo ina maanta lagu qaado kii aan waxba ka oolina inay dawladda sharaftili noo cafisa ayaan ka codsanayaa Maynuuna Maxamed waxaan codsanayaa dawladda sharaf leh waxaan ka codsanayaa maanta waa la soo weeraray qabalayga kii ka socday wuxuu igu soo weeraray wuxuu awlaadadu waa jeena guluub agoon baan ahay afar baa laga soo qaaday gurigoodii iyagoo hurda laga soo qaaday waxaan ku leeyahay aniga guriga gurada laga xidhay awlaadeedii waa la isku xidhay dawladda sharaf leh waxaan ka rabnaa ma in awlaadihii kuwii banaanka jooga ma kuwii kale la xidho waxa weeyaan walaalahay agoon baan ahay shalan ba odaygii la dilay waa la ii xoog sheegtay albaabkii waa la igu xidhay albaabkii waxa weeyaan dawladda sharaf waxaan ka codsanayaa anoo taliya taagu hayn Goday iyo meel oo waliba xanuun qaba ina awlaadaydii labana waa la isday labada kalena la igu soo daraan ka codsanayaa wiil yar oo 13 jira ciidan baa ii soo galay aqalkii ciyaalku galay ku yar oo 13 jira la kiciyay ka daba bax markaan idhina meel alla meel la maray waan waayay waxa la qabalihii baan tagay waan ka waayay waxaan imid haabaana isagoo ku jiraano imid subaxina isagoo bila quraaca Goday la geeyay waxa qaalahoona laga qaaday ma jirto wax maxaan ku dhahdaaye xariyo oo inanka yar u yaala oo maxaan ku qoraalihina ma jiro ya marka dadkii in xuni way jirtaa in fiicani way jirtaa in dadka dhibtay oo laga jiif waayay way jirtaa dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ilmaha 13 jirka 14 jirka ee maanta iskuul galayay ee buugiisii iyo qalinkiisii intuu isdul saartay aan soo masgabay ee diriiskiisii tolay ee dhigay ee isniintii galayay ee axadii inta la iga qaaday waxaan ku Goday la geeyay ee ka daba tagay ee sabti iyo axad mooye maalin kale arki waayay cidda lacagaha qaadanaysa 14aad wixii maamula wixii boolisa wixii maanta garsoora ah gabigoogaba way qaateen haye gabigoogaba way qaateen lacag laaluushay qaateen caruurta waliba haabaana lagu dhibay haabaanaana lagu caburiyaa islaanta xasiida iibisa way u soo daynayaan ilmaha haddana cishadii dambe way ku soo noqonayaan marka inaanu Jigjiga ka qaxno inaanu Jigjiga ka tagno iyo inay dawladdiina eegato inay dawladdiina korsato inay dawladdi hadayna caawimana siinaynin caruurtayada aan u xoogsanayno inay noo dayso oo nimanka ofisyada jooga dabagal lagu sameeyo oo waxaan ku yiraahdaa ilaashado ayaan ka rabaa qabalihii gudoomiyihii haystay baan la hadlay waxaan ku yiri ciyaalku ma jeena guluuba nacam buu igu yiri
halkay ku noqdeen maad noo cadayn baan ku idhi muraayaduhu iga dallacday markaa caruurtii in xun iyo in sanba way leedahay dowladda waxaan ka codsanaynaa in hoos loo dhaadhaco oo guddoomiyaasha qabalayaasha hoos loo eega ka fiican iyo ka san baan codsanaynaa annagu guddoomiyahaanu leenahay 14aad caruurta jeenaa guluubka isagaa ururiya muddo ka hor waxaanu maqalay inuu caruurta jeenaa guluubka xafladu sameeyey guri buu u kireeyey 30 kun oo bir baa ku baxday waxa la sameecadaa loo rikibay xabaalaha dhexdooda waxa la yidhi askar baa ilaalinaysay ninkaasi ma nin muwaadila oo dadka kale ilaalinaya mise waa nin dadka isku dilaya oo caruurtii nagala hoos baxay intuuna soo ururiyey ma una odhan caruurtiinii dhib bay samaynaysaa ee waalidkiiow ceshadana ma una odhanin ilmo walba gurigiisa ha lagu ceshadana ma una odhan hal maalina ma una ururin guddoomiyahaas imikana wuxuu yidhi caruurtu siday u dhantay waa jeenaa guluub ilmaha aan saylad u taaganahay een buuggiisa iyo qalinkiisii saylad ka soo saarayo eenan dawlad mushaar ka qaadanin eenan abal qaadanin eenan birdhay qaadanin een xoolad anoo da'daas daba taaganahay ee maanta markaan buuggiisii iyo qalinkiisii soo diyaariyey oo maanta shanaad galayu 13 jir yahay goday la geeyey 16 habeen u xidhay naftu way ga xaaraan caruurtaydu waxa weeyaan mid waa 17 jir midna waxa weeyaan 14 jir way kala weynaayeen caruurtayda wax lagu soo eedeeyay ma jira wax qabalay oo magaciga yaalana ma jiro iyagana ma jiro markii la xidhay wali wax kiisoo iga yaala ma jiro jaarka jiiraanka cid kasta isagu guddoomiye waa ila jaar inanka yar wuu og yahay inuu kala dooxada la ogeeyo kala xaafada ii keeno xataa ina yar habeen intuu raac dibadda igama istaago wallaahi magaca ilaahay baan ku dhaaranaya salaad waxaan soo tukaday wallaahi wa billaahi wa tallaahi inuuna dibad iga istaagin waa 13 sano waa shanaad waa bustaale dugsigiisu cadayntii waxaan wadaa maxaan ku dhahday maamulihiisa oo shaabadaysan baan wadaa kawdhe dugsigiisii baan hayaa marka waxaanu codsanaynaa annagu horta guddoomiyaha waanu ka cabanaynaa haddaanu 14aad nahay annagu wax dhiba ma rabno wax dilana ma rabno hooyaan hoo nabadaanu jecelahay annagu laakiin sakii xun xumidiisa in lagu qaado kii fiican in fiicnidiisa lagu qaado ninka maanta darooga laga helo iyo wiilkeeda 13 jirka ah ee ama 14 jirka ah ee maanta iskuul dhiganayay een daroog isticmaalin in aqalkooda ka bixin isku nolol ma noqon kara maxaan se ku daalaa markaan ilmaha buuggii iyo qalinkii iyo buuggiisii aan cadceed u taagnaa maanta goday uu yaallo maxaan ku daalaa ee mustaqbala ee niyadeen ku jooga anigu marka dawladda waxaan ka codsanaynaa sharafta leh awlaadda in la kala maro oo guddi daacada oo la dhaariyo loo diro kee xunna xumidiisa in lagu qaado kee fiican ee wax baranayana in si degdeg waddankiisa loogu soo celiyaan cabanaynaa oon doonaynaa dawladda wataay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda laga qabtay magaalada Jigjiga isla markaana la geeyay xabsi ku yaala magaalada Goday oo ku dhawaad 500 iyo dhowr kiiloomitir ka fog magaaladaasi caasimadda ee Jigjiga dhinaca kale telefishinka RTN xafiiska magaalada Jigjiga ayaa isku dayay inuu xiriir la sameeyo laamaha garsoorka ammaanka iyo sidoo kale madaxda sarsare ee deegaanka waxaana badi dadkan la hadalnay ay ka gaabsadeen wax tafaasiil dheeraad ah ay ka bixiyaan arrintan hase yeeshee marka ugu horeyso oo ay noo suura gashay inaan la hadalno daawadayaal waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idin soo gudbin doono aragtidooda